الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka soo jeedinayaa waxaan salaamayaa marka ugu horeysa bulshooyinka Soomaaliland baan salaamayaa ama waxa lagu xaf Soomaali ku hadla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan halkan ka dirayaa laba fariimood. labada fariimood waxay ku socotaa bulshooyinka reer Soomaaliland taasoo qaybina ku socoto dawladda qaybina ku socoto ganacsatada Soomaaliland. waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa markan ka hadlo dawladda Soomaaliland dawladda waxaan u sheegayaa ina dhaqaatiirteeni ana aad iyo aad u salugay sababtoo ah haddaanu nahay anigu waxaan gabadh reer Burco oo ku nool Burco waxaan tagay shalayto waxaanu qaadnay gabadh aad iyo aad serious ah baanu qaadnay gabadhaasoo seriousnimo halkii ugu dambeysay maraysa calaashaan kalxamaha ay naftu ku soo ururtay u baahnayd wax badbaadiya gabadha markii aan geynay waxa dhacday inaanu neeras suuqa joogta ka dalbanay neerasta dhakhtarka joogta waxa weeyaan waa dad way shaqaynayaan waxa meesha taala wax la yiraahdo wixii la oran jiray controlka waxaad ka soo qaadaa oo kale metelan islaanta guriga leh oo kale ama odayga guriga marka aan dadkiisu metelan oo kale aan control ku hayn ee mas'uuliyadiisu aan saarayn oo isagu sidoo doono yeelo caruurta ama islaantu iyaguna dee kama baqaano siday doonaan ma yeelaan waxa weeye ragii waaweynaa ee dhakhtarka u xil saara marka aanay mas'uuliyadoodu aanay ahaan jookar oo si wanaagsan aanay u shaqaynayn shaqaalaha ka hooseeyana si wanaagsan u shaqayn maayo sababtoo ah nimanka u xil saaran dhakhtarka weyne Burco aad iyo aad baan u dhaliinaya nin waliba wuxuu leeyahay bareefad gaar u leeyahay oo intaasoo bareefad baa nin walba u furan shaqaale gaar u shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya dhakhtarka weyn nin walba isaga qabadh baa ku xidhiidha waxa weeye ninkii marka ugu horeysa wuxuu ka soo fuur yeelaya waxa laga soo fuur yeelaya bareefadkiisa uu ku noolaa ee uu ku shaqaysanayay ee gaarka isaga u ahaa ayuu ka soo fuur yeelaya xilaa la xilligu doonu imanaya wax dabagalaya ma jiraan neerasti wax dabagalaya ma jiraan wax isagii dabagalaya ma jiraan waxa weeyaan marka ugu horeysa horta bal dhakhtar kan Burco yaa mas'uulka ah waxa mas'uulka ah rag reer Burco waayahay walaalayaan ilaahay khayr iyo xasanaad hayda siiye bal dadkiina tabaaraysan ee dhibaataysan bal horta marka ugu horeysa hoos u eega marka labaysa nin walba bareefadkaagu ha ku furnaado waxaad ka fuur yeeshaa mas'uuliyadan ku saaran ee aad mushaharka ku qaadato ee aad ka shaqaysan lagugu magacaabay ilaahay dartii horta ilaahay dadka seriouska ay imanaya waxa jira dad laga keenayo miyi waxa jira dad magaalada ku nool waxa jira dad tuulooyin laga keenayo dadkaas waa dad haday dooraan aan waxba haysan oo serious oo dad masaakiin ah waxa loo oranayaa meel halkana lagu xireynayo AC la yiraahdo oo ICU da lagu xireynayo habeen walba $15 baa laga qaaday $15 baa sheegtay irbad wax la soo siiyay lama hayo horta bal dadka jilicsan ee masaakiinta ilaa dhakhtarka dawladeena leh ma dawladeena tiri ka qaado meel walba lacag ku xira oo tidaha u naxariisanina dadkan masaakiinta mise waa waxa idinku samayseen waxa weeyaan waa loo baahan yahay oo waxaanu nahay dawlad curdina baynu lahayn aanu lahaani haddana waxa weeye dadka in loo naxariisto qofna waa qof iska bixin karayo wixii qofna waa qof aan waxba iska bixin karayn bal waa yahay kii iska bixin karayo waa iska bixin karayo dawlad curdina aynu nahayo haddaynu nahno maxaan yiraahdaa shaqaalaheenu waxba ma haystaan oo hadday doonaan mushaharba ma qaadan annaga shalay waxna lagu yiri mushaharba lagama qaato meeshan dhow bilood lagama qaadan mushahar sidaa daraadeed loo cagajiidaya waxa weeyaan dawladdu hoos u eegtay dhakhtarka weyn Burco oo dadka maxaan yiraahdaa shaqaalaha hoos u eegaan oo ilaahay mushahar ka qaadataan ilaahay dina buuray kaga baqa oo nin walba bareefad gaar ah leedahay shaqaalaha ilaahay ka baqa oo dhaqaatiirta waaweyn oo ilaahay ka baqa oo dadka masaakiinta hoos u eega taas waa taa tijaarta waaweyn waxaan u sheegayaa lacagteeni aynu lahayn waa ta Itoobiya tagtay waa ta Hindiya tagtay waa ta Pakistan tagtay waa ta Turkiga tagtay lacag wixii Soomaaliland lahaa waxa la geeyay wadan kale ma idin la tahay inta isu tagtaan tijaarteena ama dhaqaatiirteena inay dhakhtarra waaweyn ay intay sameeyaan ay u keenaan dad takhasus ku leh waxaan loo tagayo Hindiya
iyo Pakistan iyo dhulka la tagayo wax laga kaaftono inta ma keeni karaysan walaalayaal intaasaan idinku codsanaynaa reer burcona waxaan ka codsanayaa dadka reer burco ee maxaan idhaahdaaye ka shaqeeya dhakhtarka weyn inaad dadkiina hoos u eegtaan intaasaan idinku codsanayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu